maantay oo bisha ay tahay 12 bisha June wafdi ka socda dowladda Puntland ayaa wuxuu booqasho ugu yimid halka kan 5 star xarunta tan wafdi kale oo ka socda dowladda galmudug ujeedada kulanka iyagu wuxuu ahaa sidaan uga wada hadli lahayn nabadeynta iyo xasilinta guud ahaan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo kulankaasi si wanaagsan buu dhacay iyo isafgarad waxaana isku raacnay inaan bilowno wada hadaladii kuwaasoo bilaaban doona haddii ilaahay idmo berito oo bisha 13 ay tahay waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa aniga ku hadlaya wafdiga dowladda Puntland soo dhaweyntii wanaagsaneyd naloo sameeyay halkan lagu soo dhaweeyay waxaan sidoo kale doonayaa inaan u sheego guud ahaan dadka reer mudug gaar ahaan dadka reer gaalkacyo inay dhammaantood u istaagaan sida uga shaqeyn lahaayeen nabadda walaaltinimada iyo derisnimada isla mar ahaantaasayto looga dhigi lahaa gaalkacyo gaar ahaan iyo guud ahaanba gobolka mudug meel ay nolol wanaagsan ka suurtoobi karto la isuuna tago insha Allah waxaan rajaynaynaa shirarka bilaaban doona oo dowladuhuna ay ka qayb galayaan sidoo kale ay ka qayb galayaan dadka dadweynaha matalaya waxgaradka inay noqdaan shirar dhammaantood guul ku dhamaada bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa halkaan shir uga furmay labada dowlad goboleed ee galmudug iyo Puntland halkaan oo isku yimaadeen wasiirro ka socda labada dhinac iyo gudoomiyaasha labada degmo iyo gobolka shirkaas waxa laga wada hadlayay dib u heshiisiin iyo wada hadallo ka furmay halkaan shirkaas waa furmay waana lagu heshiiyay ajendayaashiina waa la diyaariyay si fiican waa la isku afkartay berina waxa bilaabmi doona shirkii oo dhameystiran ayaa beri bilaabmi doona oo furmi doona insha Allah haddii la yiraahdo